isugu jirta waxa ay u sameeyeen musharax madaxweyne ee dalka Soomaaliya Suldaan Cabdiqani Qorane. munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, odayaal dhaqameed, dhalinyaro, haween, ganacsato iyo musharax madaxweyne Dr. Suldaan Cabdiqani Qorane. qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo dadkii kale ee munaasabada ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen in Suldaan Qorane uu yahay sheekh nabadoon iyo mas'uul xilligaana uu dalka Soomaaliya ka saari karo xaaladda uu ku jiro. دكتور عبد القني سلطان عبد القني شيخ عبد القني انت waxa weeyo ilaa maalintii uu sheekha ahaa oo intaasoo ardaa sheekh u ahaa waa dhaqaanay maalintii loo dooranayay suldaannimada dadkii ka qayb galay caleemasaarkiisii baan ahaa marka tacliinta kale markuu u gudbayay PhD da maalintuu ka soo qalin jabiyay waxa weeye ragii ka qayb galay baan ahaa insha Allah taala waa sidii hore loo sheegay waa ninka loo baahan yahay maanta oo Soomaaliya u baahan tahay war suldaano adiga anaa ku wadana adiga waxaad ku qabweynaatay inaad Soomaalina tahay Soomaalina kalsooni ka samaysato hab dhaqankan foosha xun ee taladu ay joogto in qofka lacag la siiyana dadaal dheer ka gal shakhsiyad inaad ku soo baxdo saaxiibo u samaysato diin iyo dhaqan cuskato dadkaagana taageerada weydiisato umada dadka loo dooranay inay noqdaan dad munaasab ku ah amaanada ku fiican wax uu qaban karo suldaankana ka rajeynaa insha Allah taala inuu noqdo kii umada bedelo Ibrahim Traore geeska Afrika. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. aad ayaan ugu faraxsanahay madaxweynaha maanta sharaxan waa dhalinyaro waxaan rajeynayaa inaad rajo na siiso waxaan doonaynaa rajo waxaan doonaynaa isbedel dhalinyartii Soomaaliyeed bad iyo waxa qaybsaday qurbe waxaan doonayaa markaad noqoto madaxweyne insha Allah وكرسي قاعد كسوة بحضو إن الحرفات أصلا يصير دلنيات الصومالية إن دلنيات الصومالية لطرينسيو إن حق وليهين إن مالين نولادان صدقني شن سنة الدولة الآن بانو النهاي الدون كمالي كان على مشرتو كيس لياب لوي حال لياب لوي سنة بسنة كذا معينة وحي نقول يسي وحي سبير صداح حمي بس يكرر هاي هذا waxaan ka baqaynaaba in la kala tago oo duweylaad yar yar aan noqono waxa loo yaqaan تأثير التراكمي باللغة العربية accumulative effective bali hada waxa weeye effect hadii xumuhu bato waxa aan la fasiri karin oo loo maleyn karin baa ka dhacaya hadda marka waxay u baahan tahay daba qabasho dabaqabashadeedana waxaa ka mid ah sida Dr. Sheikh Suldaan Cabdiqani oo kale inay meesha ka muuqdaan anigu waxaan ku wada jiraa aniga isaguba halgan la yiraahdo kacdoon midnimo arrintaan hadda aan meesha u fadhinaa waa kacdoon suldaankan maanta sharaxan أنا وقعدت كلماتي كما هذا وعن كهذا مد الدين دل كان دين إن لو نقول بهاي جوديه سواء كجيرنا أو حمانته وحكة بحين كرا أيضاً دلا وحيلين هذا سلطان كان علماء واي dad badan oo waxaan arkay hadii la yiraahdo wadanka diin hadii lagu xallo xukumo oo dhahayo gaalada ma ogolaanayso horaani gaal maxay iga galay soo qof muslim dalka soo dal muslim ma ah ummadda soo muslimiin ma ah waxa ugu xun oo dhan waxay soo galeen wadanka gudihiisa burburkaan ay soo galeen qashin iyo wax naareed oo dhanba wadanka gudihiisa ay ku jiraan kuwaas sifayn u baahan gaala laga cabsadaa war billaahi calaykum diintaada adaale dalkaada adaale gaala intaad iska buriso ummadaaba ku taageeraba dadkaadaba ku taageeraba waxba ma ugu baahnid badiga beeraha fara xooraan leenahay beeraha leenahay badaan leenahay laakiin siyaasiyiintu warka aan leeyahay hadda dhahay waa la yaabay maxaa ninka mawaali ay leeyahay anigu waa ku tuhmayaa kalsooni weyn waxaan qabaa
suldaanku inayna ahayn waxa mudnaantiisa koowaad siduu baawariya u sii joogi lahaa haddii uu rabo inuu Soomaaliya wax u qabto iyo horumarkeeda waxaan ogahay xitaa siyaasadda haddii dhib ku keenayso suldaanku qofkii sameyn lahaa inuu yahay waxaan rajaynayaa guul iyo horumar baan u rajaynayaa Soomaaliya waxaan rajaynayaa suldaanku inuu guuleysto دكتور شيخ عبد الغني سلطان عبد الغني مدن مدحوينه soo dhawow Soomaaliya waxay u baahan tahay isbedel waxay u baahan tahay badbaadin waxay u baahan tahay dad Soomaaliyeed oo u naxa oo isu taaga hal door baan koodaan qayb ka tahay ama ugu horeysa darajooyinka halkan laga sheegay oo sheekhi hadalka furay ummadda halkan ay wada qireen dad leh bay u baahan tahay waana foolaadooda tahay waxaan rajaynaynaa inaad kursiga aad doonaysana alla kugu guuleeyo ummadaadana aad noqoto kii badbaadiya Suldaan Cabdiqani Qorane waxaad haysataa miidi ummadda Soomaaliyeed itixaan badan ku horyaalo Allah ku guuleeyo insha Allah ta'ala haduu Ilaahay yiraahdo wadan qodxa ay dhaxdaadsan yihiin ayaad murashax u tahay marka annaga hadee waana ku garab taaganahay waana ku duceynaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ugu dambeyntii musharax madaxweyne ee Soomaaliya Dr. Suldaan Cabdiqani Qorane ayaa waxa uu mahadceliyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi taageerada iyo soo dhaweynta ay u sameeyeen waxaana sidoo kale uu ka hadlay ajandihiisa siyaasadda uu ka leeyahay marka uu ku guuleysto xilka madaxweynaha Soomaaliya salaan kadib Ilaahay waa mahad iskale subhanahu wa ta'ala mahadda Ilaahay kadib waxaan u mahadnaqayaa dadkii soo qaban qaabiyay xafladan qiimaha badan ee nagu maamusay inay noo qabtaan na soo dhaweeyaan jaaliyadana kulansiiyaan fursadan iyo munaasabadan aynu danaheena uga sheekaysaneenana ay inoo suurtageliyaan anigu markaan imaado dastuurkan saddexda luqadood ka kooban ee iskhilaafsan waxaan leeyahay malihin ee hay-adihii lahaayeen noo keenay ha qaataan waxaana samaysanaynaa wax ay Soomaali heshiis ku tahay oo ka tarjumaya doonista dadkeena ayna ku qanacsan yihiin heshiiska u sokoeyo ee loo laabanayana waa kii carta wixii ka dhimana kaasa laga dhameystirayaa waana inuu noqdaa wax aan ka hor imaanaynin shariicada islaamka oo aynu ku dhaadanayno lambar 3 dalka iyaga waxa lagu sheegaa inuu dawlad la'aan yahay dadkeennana aysan dawlad haysanin waxaan isku dayaynaa dhismaha dawladda dadkeenna ay ku taabahayaan ayadoo dhismahaas aysan ahayn waxaan cirka ka soo dejinaynaa dadka ayaa dawladda iyaga ayaynu mudaynaa inay dhistaan dawladda ay ku riyoonayaan biidnillaahi tacaala lambar 4 waxaana xukuma sidaan ka warqabno minority khariban oo aan waxba naga dhagaysanaynin waxa ay noogu taliyaanna aysan ina anfacaynin sidaas darteed waxaan dhisaynaa dawlad ay dadku leeyihiin dalkana u adeegta biidnillaahi tacaala oo qof walba uu arki karo wixii uu geliyay iyo waxa uga soo noqday lambar 5 haddii aan talada dalka qabto waxaan haystaa waa 4 sano biidnillaahi tacaala 4 sano markay dhammaan tahayna waxaan arbitare ka noqon doonaa doorasho qof iyo cod ah oo aanan anigu isu soo taagaynin biidnillaahi tacaala 4 sano waxaan doonayaa inaan ku qabto wixii la qaban karay asi aanan la qaban oo maxaa ka mid ah talow war wadanka ammaan laga dhigo waa qaban karnaa ma dhici karto waxaan aaminsanahay waligeed inaan laga shaqaynin la dagaalanka khawaarijta limaada 20 sano 9 kun laga adkaan lahayaa aqli gal maaha ee wax kala jira waxa meesha yaala isku milan hay'adihii dawladda iyo khawaarijti oo loo geynayo hubkii oo la leeyahay na soo weerara lacagtana naga siiya hubkana dhaco oo qaato berri isku soo sawirayo dhahay intaasan ka soo qabsanay murtadiintii arrintaas marka kuma xoroobahay dal kuma hagaagahayo marka dhibaatooyinkaasna haysto oo aan la tacaalaynay tan iyo intaasoo la qaban waayo waa qabanaynaa dadka Soomaaliyeed biyo ma haystaan wax weyn ma waxa laga hadlayo war biyo ma haystaan in dadkoodii iyo dunyadooda biyo ay helaan baynu ka shaqaynaynaa adeeg caafimaad ma haystaan oo dalkeena waxay ka samar u yihiin dhowr dal waa Kenya waa Ethiopia waa meesha la yiraahdo soo xasuusi Masar waa Turkiya waa India waa Pakistan waa Bangladesh you name it meesha la Malaysia madaxda dalkeena joogta musiibo Ilaahay kuma keena subhanahu wa ta'ala hadday dhibaato ku dhacdo
inay baryootamaan oo diyaarad noo soo dira ay yiraahdaan ma ogiye meel xitaa burinta si koos loogu sameeyo dalkooda kuma taal inay dhisaan uma jeedaan waxaynu dhisaynaa adeeg bulsho oo ummadda Soomaaliyeed ay kula sinaato adduunweynaha intiisa kala biidnillaahi tacaala xisbiga gobonimo wuxuu si buuxda ula dirirayaa musuqmaasuqa iyo boobka hantida ummadda ee astaanta u noqday dalkeenna oo si astaan ugu noqday sanad walba marka laga hadlahayo meesha la yiraahdo maaragtay Transparency International lambarka inaan